sharaf ayay noo tahay inaan maaragtay aan idinku soo dhaweyno munaasabadan aan maanta isugu nimid taasoo aan ugu talagalnay inaan kaga tashano aayaha iyo iska warqabka iyo isku xirnaanta bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Jarmalka gaar ahaan gobolkan Hamburg iyo nawaaxigiisa sidaad la socotaan walaalayaal labadii sano ee la soo dhaafay ee ay noo dhisneed jaaliyadda Somali Community Hamburg FAW ama waa Feraynkan waxa noo qabsoomay waxyaabo badan oo aan halkan aan ku soo koobi karin oo ay laakiin qaar haddaan xusno ay ka mid tahay arrimaha wacyigelinta bulshadeena Soomaaliyeed ee degan gobolka Hamburg iyo nawaaxigiisa iyo sidoo kale garab istaaga dadkeena ma aragtay u baahan caawinta iyo sidoo kale dadka xanuunsan ee cisbitaalada ku jira iyo sidoo kale la tacaalida ma aragtay dhibaatooyinka qoysaska ka dhexdhasha sidii loo xalin lahaa khilaafyada noocaas ah iyo sidoo kale ka wacyigelinta dhalinyarada muqaadaraadka xoojinta isdhexgalka iyo furista madrasad caruurta aanu ku barno quraanka tarbiyada iyo afkooda iyo dhaqankooda arrimahaasi oo ah aasaaska bulshada ama waa aasaaska community walba waxa ugu wanaagsan ama ugu mudan ay u baahan tahay ayaanu soo qabanay horumaro fara badan ayaan ka sameynay dhanka isku xirka jaaliyadda iyo ma aragtay hay'adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn sida la socotaan arrimaha sportska gobolkan Hamburg ayaa iyagana sidoo kale aanu meel fiican ama kaalin fiican ay kaga jirtaa community-ga Soomaaliyeed marka ilaahay idinkii arrimahaasi oo dhan waxaan rajaynaynaa in wanaag ay noogu dhamaadaan marka dadaalku ma yaro marka bulshada waxa weeye qof walba kaalintiisa waxa loo baahan yahay inuu qaato marka aanu kaalintiisa inuu qaato aan leenahay waxaanu qorsheynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo oo munaasabadanna ay badaarneed sidii magaaladan Hamburg aan uga furi lahayn masaajid ay leedahay bulshada Soomaaliyeed marka masaajidkaasi guud ahaan iyadoo aan ognahay xaalad corona in lagu jiro waxa la rabaa hadana qof walba inuu istaago oo kaalintiisa uu ka qaato hawshaasna hadduu ilaahay yiraahdo annaguna aan dardar gelino marka ilaahay idinkii taasaan rajaynaynaa waxaan idin sheegaynaa annagu ka gudi ahaan gudiga jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Hamburg inaanan wax magac maal iyo mansab iyo ma aragtay dhaqaale aan ku raadinaynin inaan wax u qabanno ama aan caawino ama aan isgarab taagno bulshadeena Soomaaliyeed marka walaalayaal jaaliyadda waxay hiigsanaysaa arrimo badan oo mustaqbalka ay leedahay ma aragtay in la gaaro sida community-da kale ee nala midka ah ee dalkan degan ama gobolkan ku nool aan ula tartami lahayn oo aan wax ula qaybsan lahayn sidaan mustaqbalka wadkeena Soomaaliyeed ee halkan ku dhashay kuwa la keenayo iyo kuwa ku noolba hadda ay iyaguna ay meelo sarsare mustaqbalka dhow ay uga muuqan lahaayeen marka arrimahaasi oo dhan waxa ay ku hirgalayaan marka annaga aanu muujino isku duubni iyo isku xirnaan marka waxaan rajaynaynaa ka bulsho ahaan inaanu isgarab taagno insha Allah aad baan idin salaamayaa waxaan markaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Mahmed Auge behalten und für das Wohl dieser Gesellschaft Sorge tragen. Das heißt, wir müssen in der Gesellschaft teilhaben, wir müssen die Gesellschaft mitgestalten und wir müssen dafür sorgen, dass diese Gesellschaft von uns profitiert. Und wir dürfen keine Last für diese Gesellschaft sein, sondern ein Reichtum. Ja? Die Gesellschaft muss von uns profitieren. Und das werden wir inshallah in unseren Aktivitäten, natürlich auch mit der somalischen Gemeinde, beachten. Ein weiteres Ziel, und das ist jetzt ganz wichtig für junge Leute, ihr seid alle jung, ein weiteres Ziel ist es, Generationen heranzuziehen, die diese großen Sünden nicht begangen haben und die das Gebet verrichten. الحمد لله نحن خرجنا في سبيل الله وأتينا في هذه المنطقة في هذه الكعبة حتى نذكر إخواننا ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شفتي. يا سيدي يقول أقزش معك
mit welcher Absicht der musste Moschee haben. Der musste diese Moschee nur für Allah, nur für die Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unsere Kinder, unsere Geschwister, die so da dienen lernen. marka waxaan leeyahay inaan yani sheekada isu aruriyo oo meesha lagu soo fariisiyay oo yani adikoo rag iyo dumar ahaan markaas aad ka badan tihiin ilataray iyo wixii ku arkaan jooga aad ka badan tihiin hadda maalin walba in sheekh lagu soo qabto inta lagu soo farmarqaatin kaga dhigo iyo nin turkiya la soo farmarqaatin kaga soo dhigo maalin ilaahay keena aad dad tugsatiin dadahaanima iima ahan damiirna iima ahan qoomiyad dhan baa tihiin محايدة وح معت لقوم ذوبا أو محايدة هذا وح كلا حتى كم ذوب ويسان إلهي دفتيس مساجد حتى كم ذوب ومساجد كدفتيس سكوت السنة إلهي يقول شيء مساجد حتى سكوت السنة هذا طليرة هاي أو محايدة معت أسئلة ماشي عن السين قناته وحكم مجولان وهو إنا عبنا نقدونتي قبلنا هؤلاء إنا هو ينقدونتو ماشي يكسر أدور لها وماشي دين تكسر أسمه صلاة إلهي وتذكر عيون